gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolada Awdal iyo Salal Cabdi Cawl Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay waxqabadkii 100 maalmood ee garsoorka gobolada Awdal iyo Salal maruu ka waramayay dhismayaal cusub oo loo sameeyay garsoorayaasha deegaanka degmada Boorama waxa uu yiri waxaan ka bilaabayaa in la dhammaystiray dhismihii maxkamadda degmada oo la furay oo lagu kordhiyay hal hool iyo laba xafiis maantana ay aad u wanaagsan tahay waxaana furay wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka beeraha iyo wasiirka xigeenka tacliinta sidoo kale waxa uu mar labaad soo qaaday in maxkamaddu ay ka howlgashay deegaanada kala duwan ee ka fogfog magaalo madaxyada gobolada Awdal iyo Salal in dacwadihii dadku ay uga iman jireen degmooyinka fog iyo magaalooyinka fog inaan anigu gaarigaas diro dacwooyinka ciddii xaq u lehina ay qaado ama maxkamadda gobolka ama racfaanka ama degmadaasi si dadka reer baadiyaha looga keeno dibadda oo magaalooyinka lagu qaado meeshii goobtoodii dhexdeeda lagu qaado kuwii ugu dambeeyayna ay ahaayeen magaalo cad garbadadar iyo xiriir agteeda mar kale waxa uu tilmaamay in ay dhammaystireen kiisas badan oo u yaalay maxkamadaha kala duwan ee deegaanada gobolada Awdal iyo Salal waxa kaloo dhamaynay 16 dacwadood oo dhulka isqabsiga ah waxa kaloo dhamaynay dacwooyin dhaawac culus ah oo 24 dacwadood aad u culus oo aanu dhamaystirnay xaqii dadku ay lahaayeen aan lagu xukumay waxa kaloo aan sameeyay kormeer ku sameeyay degmooyinka gobolka Awdal iyo Salal oo aan dhiirigeliyay dacwooyinkii u yaalay oo aad u badnayn balse ay dardar geliyaan oo ay ku dhameeyaan shuruucdii dalka u yaalay iyo sharciyada islaamka waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama